بسم الله السلام عليكم. وقتي دولة العباسية وحاد عضي قصة عجيبة وحاجري نين لفه الروجة أو قدافة صيحة نين كاسي أيا وحو أركي قف مسلم وإلهي أني معي مدن أجو نين كان لفه الروجية أو قدافة صيحانية ونين كنيسة كحران الله ورمو ووح أجوي نينكي مسلم كورا مركا إنو دينتي سكشكي قليو markaasuu u tagay ninka muslimka ahaa ninka muslimkana wuxuu ahaa nin ilaahay nimcad siiyay barwaaqad siiyay lacag iyo maal siiyay oo waliba caana ayuu ahaa magaalada laga yaqaano uu tago wuxuu ku yiri niyo nabigiina sooma dhihin addunya sijnul mu'min adduunyadan qofka muslimka mise qofka mu'minka waa isku macnaa waxay u tahay jeel rasuulkiina sooma dhihin wa jannatul kaafir gaalkana waxay u tahay janno markaasuu ku yiri haa wiiri wuxuu dhahay marka adiga iyo aniga hadda wuxuu dhayaa labadeena jeel ku jira soo aniga gudaafadan seexda soo aniga la fahan ruuga war labadeena yaa jeel ku jira markaasuu ku yiri ani ilaahay jannadu ii diyaariyay nimcada Allah subhanahu wa ta'ala ii diyaariyay iyo waxa ii laaban markii adduunyadan loo fiiriyo waxayba noqon inaan jeel ku jiro kale adigana ciqaabta iyo cadaabta lagu diyaariyo ku sugaysa marka loo fiiriyo tana hadda ku sugan tahay tanaaba janno ku noqon ninkii gaalka ahaa halkii ayuu ku islaamay sidoo kale arrintan waxay ku dhacday ibnu xajar ayaa nin gaala sidan u weydiiyay isla sidan oo kale ayuu ugu fasiray oo adduunyadu waxaynu ku nahay walaalayaal jeel hadalka doonto kuma hadli kartid ficilka doonto ma sameyn kartid ليه؟ لأن الجالة كجرتها نينك شاعر كان وكيلها سجنت لها وأنت لها محبا فكيف تحب ما فيه سجنت عقوليها أدويدا حبسي يا كوتا هاي سيدي حبسي وجعلان وحين وذوقنا هدادك مركا حبسي لقليو حبسي كما جعلان وحين جعليهن لقصو صارو أديقنا وحال وشيغي أو أكتهي أدويدا إنا حبسي كوتا هاي سجنت لها وأنت لها محبا فكيف حال يا عجيب أدويدا حبس يا قطها سيدي حبس وجعلان يا وهذا الحكمة اللي يقول سجنت لها وأنت لها محبا فكيف تحب ما فيه سجنت